runtii sharaf weyn ayay ii tahay maanta inaan ka soo qayb galo munaasabadan aad ku gudoomaysaan shahaadada oo ah laba shahaado dufcada 7aad iyo dufcada 13aad ee jaamacadda Green Hope. waa markii ugu horeysay ee madal jaamacadeed oo sidaan oo kale aan ka qayb galo. waxaan ku faraxsanahay in ay noqotay jaamacadda Green Hope faca weyn sumcadda leh maamuuska loo hayo soo saartay dad badan oo bulshada maanta wax u haya inaan goobjoog ka ahaado munaasabadeedan qiimaha badan. jaamacadda lama taanaha ah Kasmandos runtii waxaan aad u xiiseeyaa oo aan u jeclahay horumarinta afka Soomaaliga ah. jaamacadda Green Hope waxa ay noqotay jaamacaddii ugu horeysay ee u istaagta arrintaas oo soo saarta maantay dufcadeedii labaad ay qaadanayso shahaadada koowaad ee heer jaamacadeed. sidaad ogtiin dadka ajaanibta ee waddanka noo yimaada iyo dadka qurbo joogta ee soo laabta waxa ay kala garan waayeen in ay Soomaaliya joogaan iyo in ay joogaan dal shisheeye marka ay arkaan boorarka suran wadooyinka waaweyn ee ahay meelaha ganacsiga meel kasta boorarka ku dhagsan waa afqalaad. waxa qof ii sheegay in xafiis markaasi shaqo ay ka socotay waliba xafiis dawladeeda badood iyo ay dhex martay dadkii howlwadeynka ahaa. markaasaa markii dambe mid ka mida soo jeediyey oo yiri haddaan ka waran dooda waa isu fahmi weynay afqalaad haddaan u bedelana ka waran. heerkaas ayaan maraynaa in afkii Soomaaliga aan ka sii fogaanayno. waxaan bogaadinayaa jaamacadda Green Hope ardada ka soo baxdayna waxa u taala gaar ahaan ardada afka Soomaaliga baratay shaqo xoog leh maxaa yeelay dhibaato xoog leh waxay ka jirtaa xagga afka Soomaaliga oo si daciifaya haday aan leed warqadaha la qoro haday aan lahayd xiriirada xagga dawladda. annagoo xildhibaanna ayaa iswarsanay mar aan fogeyn hadda oo inta aan fasaxa ku jirnaa in arrintaas ay dhibaato xoog la tahay una baahan tahay in baarlamaanku ay soo gaarto dooda ah dabargoynta afka Soomaaliga in laga hortago la hor istaago kana yimaadaan doodo nuxur leh taasoo dhalin kara in qaraar uu ka yimaado si loo badbaadiyo afka Soomaaliga. jaamacadda Green Hope waan u hambaliyeynayaa. aqoontu waa furaha horumarka dhalinyarada Soomaaliyeed ee qalin jabinaysa hooyooyinka soo barbaariyay waalidiinta dhammaantiinna waxaan idin leeyahay hambalyo. dalku waxa anfacayo waa aqoon waa waxbarasho oo qofku wax barto kadibna dalkiisu uu istaago. aad ayaan u hambaliyeynayaa inta maanta guuleysatay. aad ayaan u hambaliyeynayaa. waxaan idin rajaynayaa mustaqbal wanaagsan. waxaan idin rajaynayaa iftiin qurux badan. inta ku haminaysa inay jaamacadda ka qalin jabiso ee iyaguna sugaaya ama uu hankaa ku jirana iyagana hambalyaan leeyahay. hooyooyinkii iyo aabbayaasha soo koriyo ubadkaasi maanta u diyaarsan inay shahaadada qaataan hambalyaan leeyahay. saaxiibkay Sheekh Aalowna hambalyaan leeyahay.